Maxaynu ku aragnay goosgooska cusub ee laga soo bandhigay taxanaha Gundigii Orhaan? Maxayse ahaayeen wejiyada cusub oo aynu ku daawanay goosgooska? Goorma ayaase la daawan doonaa xalqada koowaad ee taxanaha Gundigii Orhaan? Tartanka Orhaan iyo Nilovar ma laga yaabaa inaynu ku daawano xalqada koowaad ee taxanaha Gundigii Orhaan? Maxaa helay xaaska Calaa'addiin ee Goonja? Maxaase ku dhacay Calaa'addiin Bey? Intaa iyo in ka badan ayaanu ku soo qaadan doonaa su'aalaha uga jawaabayna muuqaalkeega maanta. Daawada ku soo dhawow muuqaalkeena maanta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Daawadayaal ku soo dhawaada muuqaalkeega maanta. Waxaanu ku falanqayn doonaa taxanaha cusub ee la magac baxay Gundigii Orhaanka oo lagu soo bedelay taxanihii hore aynu daawan jirnay Gundigii Cusmaan, kaa oo socday muddo 6 sannadood tan iyo gabagabadii 2019 ilaa gabagabada sanadka 2025. taxanahan uu lahaa markaasi ninka lagu magacaabo Maxamed Boosdag, kaasoo horeyna u sameeyay taxanihii Dirlis Arturul ama Sarakiicidii Arturul, kaasoo soo bilaawday sanadii 2014 ilaana socda markaasi sanadkii 2019 gabagabadii muddo 5 sannadood kaasoo ka koobnaa markaasi 5 season. waxa uuna ku xijiyay markaasi taxanihii Gundigii Cusmaan, isagana socday markaasi 6 season iyadoo loogu talagalay markii horeba in laga sameeyo 7 season. inkastoo markaasi uu yimid khilaaf, haddana waxaasi waa laga gudbay, waxaana loo sii gudbay markaasi taxanihii Gundigii Orhaan. kanina waa silsilada uu leeyahay Maxamed Boosdag, uuna markaasi ka sameynayo taariikhda dowladda Cusmaaniyiinta. qadarna waxa inoo bilaabmi doona taxanaha Gundigii Orhaan. daawade fadlan channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe inoo saar, hore haddii nala joogtayna muuqaalkeenoo la garay aad iyo aad ayaadna u mahadsan tahay. intaynaan gudageli muuqaalka ka horaatana ku saliya xabiibkeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam. hadeerna si toos ah aynu u gudagalna markaasi muuqaalkeega maanta. inkastoo aanan weli la shaacinin jilayaasha taxanaha ka qayb qaadanaya markaasi magacyadoodii ay ku kala matali lahaayeen, haddana goosgooska koowaad ee taxanaha dadka kasoo muuqday badankooda markaasi doorarka ay sii kala matali karaan waa wax la sii fahmi karo, iyadoona markaasi dadkii horey u joogi jireen badankooda markaasi goobta ay ku sugan yihiin. waxaan arkaynaa markaasi jilayga cusub ee doorka mudane Orhaan qaadanaya isaga oo faraskiisa dul saaran, waa sida goosgooska uu ku bilaabmaya. hadaladiisana waxaa ka mid ahaa markaasi calanka sugaya markaasi dabeesha inay dhabido ama ay sidaasi ay u babido. wuxuu kaloo leeyahay markaasi saaxiibka keliya igu weheliya markaasi aniga riyadeyda, oo kala jeeda markaasi yeyga isaga garabkiisa taagan. waxa uu kaloo leeyahay aabahayga, kaas oo markaasi aniga riyadiisii igu aaminay oo igaga tegay. waxaana soo baxaya mudane Cusmaan iyo xaaskiisa marka filimka hadda aan daawanayna waxaan rajeynayaa malhuun inay noqon doonto, aysan Baala markaasi noqon doonin, maadaama Baala doorkeeda markaasi aad iyo aad u soo qaadatay. laakiin hadda taxanaha Gundigii Orhaan marka la matalayo Orhaan hooyadiisa inay joogto ayaanu markaasi rajeynaynaa. qofka matali doona markaasi duqda waayishana waxay noqon doontaa Malhuun Haatun, laakiin gabadhii horey u matashay ma aha, waa qof kale, sida haluu fahmo marka daawadayaal. waayahay waxaa arkaynaa marka uu leeyahay aabahaygii kaasoo igaga tegay, riyadiisii ahayd markaasi in dowladda la dhiso, ammaane aniga iga dhigay ayuu leeyahay. mudane Cusmaan ayaana sidaasi kusoo baxaya, oday waayeel ayaana matali doona markaasi doorka mudane Cusmaan. waxaan kaloo arkaynaa isaga oo dhahaya markaasi gacalisadeedii, taas oo aanu ku midownay jacaylka, oo dee wuxuu leeyahay dee meel cidlaa iskamaynaan helin, layskuma keenine waynu isjeclaanay buu leeyahay. maaha sida moogta isaga hooyadiisii aabiis oo kaleeto Malhuun iyo Cusmaan ismay jeclaan, caadi baa la isugu daray. marka wuxuu leeyahay gacalisadeedii aanu jacaylka ku midownay waa Holovira, oo magaceedii dib dambe ka noqday Nilovar Khatun, ayaa markaasi garabkiisa taagan. waxaana rajeynaynaa markaasi xalqada koowaad labadooda oo faras ku tartamaya in lagu bilaabi doono sida lagu yaqaano markaasi ninka Boosdag lagu magacaabo. maxaa yeelay tanii seasonkii labaad ee Arturul wuxuu ku bilaabay Arturul iyo xaaskiisa Xaliima Sultaan oo tartamaya. Cusmaan iyo Baalana markay isguursadeen waatay tartameen. waxaana rajeynaynaa markaasi maadaama hadda Orhaan iyo Nilovar isqabaana tartankooda in lagu bilaabi doono
waxaan kasii qiyaasayaa markaasi inta yar aan muuqaalka ku arkay iyaga oo markaasi fardahooda saaran duurkana jooga laga yaabay tartankooda markaa inuu usoo dhammaaday. taasina waa aniga fikirkeyga. qofkay la qabanaa dhanka hoose commentiska ayuu daawada igula wadaagi karaa. waxa uuna dhahaya markaasi Orhan waa gaariseedii aan jaceylka markaasi ku midownay. wuxuu kaloo soo hadal qaada markaasi haweenka sugaya markaasi ragooda ama nimankooda kuwaasoo markaasi qabiilka ku sugan. halkaasina waxaynu ku arkaynaa gabadhii Gonja ahayd iyo Malhoun ayaa markaasi halkaasi ku sugan, sidoo kale Niloufar Khatun. halkaanina markii aniga laftirkayga shaki ayaa igu abuurtay, maxaa yeelay wejiga Gonja xogaa ashmaaha laga yaabay ninkeeda iyada inuu ka maqan yahay Alaadin bay weeye. xalqada soo socotana Alaadin isagoo maqan in lagu bilaabay ayay u egtahay. haweenka sugaya macnaha nimankooda waxaa lagala jeedaa maxaas walay ku jira. markiisaas darteeda Gonja waxay sugaysaa ninkeedii Alaadin. kulli Alaadin oo meel jira ayaa lagu bilaabi doonaa, sidaas ayaan rajeynayaa. kaligeedna maaha, waa dumarkoo idil baa sugaya ragooda lagala jeedaa oo dagaal uga maqan yihiin. sidaan u badinayana maadaama goosgooska dhexdiisa dagaal uu ka dhex dhacayo, Alaadin yaa hore loo kaxaysan doonaa oo mala afduuban doonaa. kulli wixii naga qarsoon wax unbaa ka jiri doonaa. kulli maxaas aniga waan ka yara shakiyey. wuxuu kaluu leeyahay markaasi dagaalyahanadeenii, geesiyaasheenii, nabadoonadeenii iyo sidoo kaleba waxgaradkeenii. marka uu sidaa yiraahdo waxaynu arkaynaa markaasi isagoo calaamadeysanaya markaasi mihii uu weerari lahaa iyo qalcadii uu weerari lahaa. isla markaasna waxaa soo baxaya laadirkii weynaa kaasoo qaadan doona markaasi difaaca qalcadaasi, sidoo kaleetana kana hortegi doona Orhan iyo waxa markaasi uu asaga gadaal ku sitay ciidamadiisa. diyaarna waxa markaasi ninkan inuu ka difaacdo dhulkiisa sida Roma balan hore u qaadayba inay ka soo ceshan doonto Cusmaan dhulkii hore uu qaatay. halka Cusmaan uu doonay dhul balaarsi kale cunugiisa Orhan uu ku dhiiri gelinaya markaa in furashooyinka sida loo sii wado. waxaana arkayna markaasi maxay aan jecelahay inay buursa tahay oo Orhan uu qabsan doono intuusan aabiisa dhiman ka horeeto. maxaasi inuu ka talin doono markaasi taliyahan tan iyo seasonkanna waxyaabahan lagu madadaali doono ayay ka mid noqon doontaa furashada buursa. kadibna waxaa arkaynaa isaga oo dhahaya Orhan cadowgeena gardarowlowga ah ama daalimka ah iyo caalamka oo idil dadka ku nool waxaan u sheegayaa buu leeyahay inaan ahay mudane Orhan wiilka u dhalay mudane Cusmaan. waxaanahay buu leeyahay Orhan wiilka u dhalay mudane Cusmaan. waxaana leeyahay dhammaan nabadgelyo korkiina Allah ha yeelo buu leeyahay. macnaha waa gabagabada goosgooska dhamaadkiisa isagoo dhahaya ayaan la arkaynaa markaasi dhammaan dadka waxaan leeyahay salaamun calaykum oo kala jeeda markaasi nabadgelyo korkiina Allah ha yeelo. waanu nimi waana soo laabanay. waxa la dhaho salaamun calaykum anaka waaye anagana la salaamu waa Orhan ayaana isbarow markaasi iska keen barayo. waa inaan ka qaadan markaasi aniga ugu horeey qofka ka qaadayo calaykum salaam baa leeyahay. marka daawadayaal intaasina waa iska kaftan. hadda waxaan rajeynaynaa markaasi xalqada ugu horeyso 14 bishan inay bilaaban doonto. adii kulli arbacada hadda nagu soo foodla arbacada ku xigta weeye. maadaama hadda aan la rajeynaynin arbacada ay nagu soo food lahayd habeen dambeeto qamiis soo galaysa in la bilaabi doono ma maleynayo. laakiin sida la rajeynayo insha Allah waxaa la bilaabi doonaa markaasi isbuuca xiga. waxaana rajeynayaa markaasi hadda maadaama maanta taariikhdu 6 ay tahay inay ku soo aadi doonto adii qiyaas ahaan 15 bisha 14 meelaas waa arbacada dambe waay 15 meelaas taada waa jecelahay. marka sidaas darteeda 15 la iska dheh habeenimada qamiis soo galaysa ayaana markaasi la bilaabi doona. filinkanina waxaa gatay markaasi TV-ga ATV kaasoo horeyna u gatay taxanihii gundiga Cusmaan. inkastoo aniga aan islaam markaasi ninka boosdag loo magacaabo TV kale ayuu ka iibin doonaa filinkan. hadaa isleedahay daawada Cusmaan ba kana laga iibin kana kan laga iibinaa ba aslahayn de waxaad ogaataan Arthur walba boosdag ba iska lahaa TRT buuna ka iibiyay Cusmaan wuxuu ka iibiyay ATV. sida darteeda hadeerna waxaan arki karnaa markaasi Orhan in laga iibiyay markaasi ATV. halkaas ayaana markaasi kala socon doonaa daawadayaal. muuqaalkayga maantana halkaas ayaan ku soo koobayaa. waxaana idin leeyahay markaasi fadlan channelka subscribe hala ii saaro. aad mahadsantihiin. muuqaalkana hala like gareeyo. intaanu ku kulmi doona muuqaalka iyo muuqaalkiisa xiga waxaan idinkaga tegayaa salaamti salaamka salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.